xaaladda abaarta ah oo sii xumaanaysa awgeed ayay bulshada xoolo dhaqatadii u doolayaan meel kastoo ay xoolaha uga helayaan biyo iyo baad. maamulka degmada Goljane ee gobolka Faafan ayaa 92 qoys oo kamid ah reeraha abaaraha ka soo cararay oo ka yimid gobolada Jarar, Nagob, Erar, Shabeelle iyo Qorraxay meel kamid ah u qaybiyay raashin ay ka soo iibiyeen lacago mushaharka shaqaalaha degmada laga jaray. qoysaska ayaana bogaadiyay raashinka iyaga oo sheegay inay wax ka gaarsiinayaan reeraha la midka ah ee abaartu ay wada saameysay. degmada waxaan ka soo dhaxbuur marka waxaana keenay xoolo abaaraysan baan soo barkiciyay marka wallaahi abaar baan nagu dhacdo xoolihii dad iyo duuyaba abaar baan nagu dhacday marka koow waa intifaac kun iyo koob baa marka xaaladda koobaad waa biyaha tan nagu daran koow waa biyaha waana taloogo kun iyo koob baa marka kun iyo koow waa biyaha dan lahaynin marka wax kala soconaya ma jiro dad iyo duuyo wax noo soo arooraya ma jiro kala dadku waa baraka wax aqal lama wato ciyaalkii dhaxanta iyo waxa leeyahay maarta dheelka waa baraka abaar nooc u dambeysay baan haysata marka maanta waxaan ka helay halkan macnaha waxaan ku fadhinay macnaha nacfiga yaan helay marka ilaahay baan ku mahadinaynaa waxaan ka yimid degmada Gunagado marka waxay watay abaar baa keentay wadankan yaa keentay marka abaarta ay keentay alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta waanu fiicanahay abaartiina keentay dawladdanadii iyo dadkanagii buu noo gurmaday Goljane aad iyo aad buu fiican tahay Goljane waxaanu kala kulanay aad iyo biyihii waanu kala kulanay oo biyihii way wanaagsan yihiin hadda ka hor qolkii hore see ahayn laakiin eega way fiicnaadeen si fiican baa looga cabaa dadkun baa badan raashinkii waana la siiyay. dhinaca kale maamulka degmada Goljane waxay si bilaash ah u qaybiyeen dawooyinka xoolaha maadaama bulshadu aysan haysanin waxay ku gataan dawooyinka waxa weeyaan xooluhu aad bay u dhibaataysan yihiin dawladaan iyo wax kasta iyo daaq la'aanba way naga dhibaataysan yihiin dawladda hada gacan qabad waanaan ka helin laakiin tayeegaba mahad ilaahay way noo badan maxay tahay dawadii xoolaha la siiyay marka way kulay way noo soo soconaysaa irsaaqadii oo kala duwan halka kuuga gacan qaado waa tabis intaaniba way xoolihii dhaqoorta bay ka muruxday uu iska baqbaqtay ayaa uu caalan yahay wax loo siiyana walaalayahay xoolihii maba iibsamayaan oo dadkii baba la leeyahay wax looga iibiyo waxaan ka soo qaxay degmada imka Garbo gobolka Nagob ilaa imka 20 geedi baan soo guuray abaar iyo baahi baa ay soo qaxisay marka socodkii dheeraay hayaanka aan soo galay waxaan umka garanaysaa wax baahi oo wali garanaysaa aan ku baahi baxo wali ma helin maanta waxaa la siiyay dawadii xoolaha la siiyay marka dawladdu alxamdulillaah rabbil caalamiin baan leeyahay biyihii baa laakiin maraysa iyo baadka labadaba waan u baahanahay laakiin dawadii waan haynaa. guud ahaan degmada Goljane waxay marti gelinaysaa 6452 qoys oo ka yimid gobollo kala duwan oo la soo doolay xoolihii ay haysteen sidoo SRTV u sheegay gudoomiye ku xigeenka gobolka Faafan. waxaan halkan u nimid waxa weeyaan inaan kala qayb qaadano doolka degmadan ku soo hayaamay doolkan oo ka soo haya ay soo barakicisay abaartu isla markaana ka yimiday gobolada ay aadka abaartu saameysay si aan uga qayb qaadano ka gobol ahaan gobolka Faafan xubnaha gobolku dhamaan waxa loo kala baxay degmooyinka gobolka si xaaladan adag ee jirta aan ula wadaagno bulshadayada isla markaana aan noqono front line si aan u ogaano dadka ay abaaruhu saameeyeen goobtan aad arkaysaan waxa loogu qaybinayaa 92 qoys raashin iyadoo doolka meeshan ku soo hayaamay oo tiradiisu dhan tahay 6452 qoys waa tiro aad u yar inta wax laga siiyay gacanta rabbi baa wax gaadha balse laakiin binaadmi baan inagu nahay waxaan tari karnaa uu yar yahay habase haatee haddana waxtarka binaadmi oo la nooleeyaa wax walba ka qiimo badan. dhankiisa gudoomiyaha degmada Goljane ayaa sheegay inay xaalad kasto ay ku sugan yihiin shacabka ay abaartu soo barakicisay ay la qaybsanayaan wax kasto ay awoodaan ay u hurayaan xooluhu gurmad gaar ah u baahan yihiin alaf u baahan yihiin dadkeena maartay wuxuu u baahan yahay iyaga laftooda gurmad u baahan yahay ka degma ahaan awoodnada waan la dhax soconnaa waa maalinkii maartay shacabka la dhafoor noqon lahaa maalinkii shacabka la garab istaagi lahaa waa maalinkii shacabka loo soo bixi lahaa shacabkeenu maalinkii ay nooga baahi badnaayeen sidaa darteed annagoo ka shaqaale ahaan iyo ka maamul ahaanba waan garab taaganahay shacabka maartay abaar keentayga ee degmada maartay yimaado garab taaganahay iyadoo lafteeda shacabkii si degan degmada lafteeda uu tabaalaysan yahay maanta maartay wada aragtaan sad aragtaanba in bilow aan maartay qaybinay aad bay u yartahay laakiin awoodda maartay degmada weeye
وسقاشن يلبا قوس مارتا وحا أن مانتا أنو قيبني راشين مارتا نوعي كردونا مارتا أنو قيبني سقاشن يلبا قوس وي waxaan rajeynayaa inaan joogtayno oo aan si joogto ah maartay aan ka dhigno wixii awood degmada